السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaheyga waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan waa walaashiina Muna kusoo dhawaada channelkeena Muna's Home haddii aad nagu cusub tahay walaal hanaga hilmaamin subscribe like and share hore hadda u joogtaan insha Allah like tay commentiga naga hilmaamina ما شاء الله maanta baraf zaaid ayaa inoo tahay maanta waxaan u soconaa IKEA ayaan rabaa inaan aado insha Allah idinkan waxaan jeclaystay inaan vlog yar aan idinla wadaago alaabo ayaan rabaa IKEA inaan ka doonto insha Allah waan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha aan ka soo gatay fasaxii hadda waa iska gabagabo waa iska dhamaad marka waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto maalmaha yar oo hadda haray waxaan rabaa marka organize badan in aan sameeyo qaanadooyin ayaa iga maqnaa qaanadooyinkaasi ayaan IKEA u doonto insha Allah idinkan tusin doonaa meesha dharka ayaan rabaa inaan iska hagaajiyo maqaasiin yar ayaan qabnaa oo yacni dharka loogu talagalay marka kuwaas ayaan rabaa inaan iska hagaajiyo qaanada ayaa marka IKEA aan kasoo doontay oo alaabo iyo waxaas aan saaran karo qaanadahan hadda arkaysaan ayaa runtii aad iyo aad ii cajabiyay guriga intaanan soo bixin ka hor waan soo cabiray isku cabir ayay noqdeen maasha Allah haddana waa kuwan ayaa rabaa marka IKEA inaan ka qaatay insha Allah idinkana waxaan jeclaystay inaan vlog yar aan idinkaaga soo duubo mar walbana walaalayaal waxaan idinkaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad ii taageertaan in commentiyadiina quruxda badan jazakallahu khair ayaan idin leeyahay qof walbo oo i daawada qaanadaha aan rabo waa kuwan ayaan qaadan doonaa insha Allah laba nooc oo aad arkaysaa midna waxaan ku jiro dhaldhalaal ayaa ku jiro midna waa iska caadi marka nasiibkeyga waa laga dhameystay maadaama corona ay iska jirto waxaa la yiri alaab cusubna hadda kulay lama keenayo xilliga la keenayo lama ogo samarka ayaa ugu soo horeyso anigana waqti ayaa i haya marka ilaa samarka ma sugi karo aad iyo aad ayay ugu fogaatay kuwii kale cadka ayaan iska soo qaatay dukaamo kale ayaan soo maray insha Allah ayagana decoration yaal yar aan rab inaan ka soo gato waan idinla wadaagi doonaa marka hadda videogan dhameystirta hadhow guriga markaan imaano ayaan bilaabaa in aan xirxiro si idinkana hadda ula socotaan insha Allah kulli maqaasiinkan waa iska processkaasina waan idinla wadaagi doonaa qaabka ugu fudud oo yacni guriga aad ku organize gareysan kartid adigoona insha Allah qarash badan aadan galin marka maqaasiinka ayaa rabaa inaan iska hagaajiyo maadaama waxbarashada yacni igu soo food leedahay waxbarashada aan ku laabanayo waxaan rabaa marka guriga in uu mar walba uu ii hagaajisan yahay oo organize uu ii yahay subaxna way ii fuudaanaysaa yacni kuma wareerayo waqti badan yacni ma rabo inaan geliyo dharkii marka sidaas darteed ayaan organize hadda ayaan u sii sameysanayaa marka guriga hadda aan deganahay mardhow ayaan soo degnay almost 3 bil camal ayaan deganahay marka wixii intaan cabirayay aan fikirayay sida rabo yacni inaan u hagaajiyo waqti ayay igu qaadatay haddana insha Allah waqtigeeda ayaa kulli la gaaray qaanada aan jecelahay aniga oo aan ka helay runtii ayaan helay cabirkii wixii dhan markaan isku fiiriyay maasha Allah oo yacni ibaas gareynay ayaan helay marka kuwaasi markaan soo gado guriga hadda aan ku soo laabano insha Allah ayaan bilaabaa in aan xirxiro ila socdo insha Allah daawasho wacan hadda guriga ayaan ku soo laabanay bismillaah banaanka aad iyo aad ayuu yacni dhaxan u ahay maasha Allah guriga markii lagu soo laabto kuleelkiisa aad dareentid inaba caadi ma ahan marka waa kana guriga ayaan ku soo laabanay alaabta ayaan furfuraya qaanada aan soo gato waatana sidaan ayay u taalaa waxa waaye waa istaajin kartaa ama waa seexin kartaa sida rabtid ayaad u isticmaali kartaa qaanadahan maasha Allah waxyaabo badan ayay runtii ay ku wanaagsan yihiin wax badan ayaa qaanadahan ay ku fiican yihiin sida rabta ayaad u isticmaali kartaa kulli aniga waxaan rabaa inaan seexiyo seexis ayaan u isticmaali doonaa ma istaajin dooni haddii aad soo gadatid lacag oo kale aad istaajinayso waxa aad iyo aad muhiim u ah in darbiga lagu dhijiyo maadaama ilmaha ay isku soo ridi karaan aad iyo aad ay yacni qafiif ay u tahay laakiin kulli aniga hadda waan seexin doonaa cabirkana maasha Allah aad iyo aad ayuu runtii oo ii cajibiyo qof walba ID-giisa waaye markii laga hadlayo qaanadaha inta badan alaabaha IKEA yaalo yacni sida rabtid adiga
ayaa dib u habaysan kara u sameysan kartid oo DIY badan ayaad ku sameyn kartaa. marka qaanadan ayaa aniga aad iyo aad ii cajibisay. qaanadan ayaan soo doortay. tan waana tan aniga aan rabo inaan dharka aan ku organize gareeyo insha Allah. haddana waa ila soconaysiin sidaan u xirxirayo. maadaama aan idin sheegay qaanadahan in loo isticmaali karo siyaabo badan googlaha mise youtube-ka inspiration aad ka raadin kartaan maasha Allah. inaba caadi ma ahan qaanadahani sida loo isticmaali karo dadka markaad aragtid yacni siyaabo kala duwan ayay u isticmaalaan. qaar ayaa xataa waxay dhigtaan fadhiga oo kala qaar ayaa ku sharaxda qaar jikada qaar caruurta qolkooda qaar waxay ku sharaxdaan maxay ahayd qolka dharka qaar jiifka subxaanallah aad ay u badan yihiin. marka kulli adiga haday qaanadahan aad xiiseynaysid waxyaabaha oo kale aad rabtid inaad saaratid ama aad ku qurxisid oo kale aad fiirinaysaa googlaha mise youtube-ka oo kale inspiration aad ka raadinaysaa si yacni adigana aad uga tusaale qaadatid. saa ogtiin ayaa laabta IKEA mar walba markaa soo gadatid adiga ayaa lagaa rabaa yacni in aad isku xirxirtid qofku xirxiraya ma lahan. marka laakiin maasha Allah geedkani aad iyo aad ayuu u fududahay waqti badan ba yacni ma uusan qaadanaynin alwaaxyaal iyo waxyaabo yacni la isgelgelinay ayuu ahay aad iyo aad ayuu u fududahay. anigana 2 xabo ayaa qaanadahan ka soo gatay marka 2 xabo waxaa laga yaabaa 30 daqiiqo camal inay igu qaadatay. wixii shayga ugu fudud IKEA aan ka soo gatay oo aan xirxiro ayuu ahay kan maasha Allah. runtii markii aan fureen arkay intaasoo page aad iyo aad ayaa u naxay laakiin maasha Allah aad iyo aad ayuu u fududeed wax dhibaato lehna ma lahan. waa kan hadda qaanadii haaf ayaaba maraya qaybtii hoos oo dhan waa dhisay kor kaliya ayaa ii dhiman. waa soo dhameynaya waan soo xirxiraya insha Allah kadib ayaan idin tusinaya qaanadii markii aan dhameeyay sida ay ku soo baxday insha Allah. ila socda asxaabta. waa kan asxaabtii waan dhameeyay qaanadii sidaan ayay kusoo baxday. tan oo labadeeda waaye midna had already maqaasiinka ayaaba geliye teedii kaleetan waa kana insha Allah markii aan kala hagaajinayo iyo qol kastaan uu kala hagaajinayo waan idinla wadaagi doonaa insha Allah asxaabay. mar walba waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo ay daawataan oo aad igu xirantiin jazakallah khair ayaan idin lahaa insha Allah. videodan waan soo badinaya aad iyo aad ayaa laga codsaday organizer-ka anigana farxad ay tahay maasha Allah in aad ka hesheen oo idinkana aad rabtaan yacni inaad guriga aad quruxsataan oo hagaajisaan oo dhiirigelin inay idin tahay. waa mahadsantiin insha Allah asxaabta. video kaleeto ayaan idinla wadaagayaa maqaasiinka marka si aan u hagaajiyay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.